wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta la filayaa inay gaaraan magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya halkaasi oo ay ka socoto qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maalmahan ku sugnaa gobolka Galgaduud isla markaana soo maray magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado haatan uu ku wajahan yahay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud iyadoo halkaasi uu tagi doono sidii loo dhameyn lahaa khilaafka u dhaxeeya madaxda maamulka Galmudug oo in muddo soo jiitamayay haatan soo gaaray waqtigii la qaban lahaa doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug. Waxaa shalay magaalada Cabudwaaq gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi kaasi oo kulmo ay ku dhaxmari doonaan magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud isaga iyo ra'iisul wasaaraha iyadoo kulmadaasi looga hadli doono sidii loo dhameyn lahaa khilaafka u dhaxeeya madaxda maamulka Galmudug iyo sidii ay u dhici lahayd doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug. wararkii ugu dambeeyay magaalada Cadaado laga helayo ayaa waxay sheegayaan in xalay kulmo ay dhaxmareen madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyadoo kulmadaasi la sheegay in looga hadlay sidii ay u dhici lahayd doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug. Ha yeeshee ma jiraan wax war ka soo baxay kulmadaasi iyo in la isku afgartay halka ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug iyadoo ay isku khilaafsan yihiin madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya halka ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug. Ammaanka magaalada Cabudwaaq ayaa aad loo adkeeyay iyadoo gudaha magaalada lagu arkayo ciidamo fara badan kuwaasi oo sugaya ammaanka magaalada isla markaana la filayo maanta inuu gaaro halkaasi wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.